بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال سيداد أكتين وحان كودا جرنا هل دقال وان كولا تعالي نسيدي عن تاج تبر يتلكستا يسوقو جين لهين سما طبحينتا بالشدين مانتا dalkeenna waxaad ka warqabtaan heerka uu marayo taasoo ah in tirada dadka cudurka COVID-19 asiibay ay tahay mid si maalinle ah u kordhaysa waxaan culayska si wada jir ah u saarnay sidii cudurkan umad ahaan aan ula dagaal gali lahayn annagoo kaashanayna culimada dhakhaatiirta haweenka dhalinyarada bulshada rayidka ganacsatada dowlad goboleedyada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dawladdu waxa ay wadaa baaris ballaaran taasoo ay ku howlan yihiin howlwadeennada wasaaradda caafimaadka oo mar walba heegan u ah u gurmashada shacabka Soomaaliyeed si loo ogaado dadka uu saameeyay cudurkani waxaan ilaa iyo hadda diyaarinay cisbitaalka Martiini oo ah cisbitaalkii ugu horeeyay kaasoo lagu diyaariyay qalabkii loo baahnaa laguna daaweynayo bukaamada uu xanuunkani haleelay waxaa kaloo iminka gacanta lagu hayaa oo gabagaba ku dhow cisbitaalkii labaad halka cisbitaallo kalena qorshahoodu ay socdaan waxaa dawladdu dalbatay oo dibadda ugu maqan qalab caafimaad kaasoo dhowaan dalka soo gaari doona loona qaybin doono gobollada dalka oo dhan waxaa toos u shaqeynaya xaruntii loogu talagalay in qofku isagoo gurigiisa jooga haddii uu isku arko calaamadaha cudurka uu toos u soo waco xaruntaas waxay halbowle u tahay helista xogta faraysa bahda caafimaadka si ay u samata bixiyaan kuwa xaaladoodu daran tahay talana u siiyaan kuwa talada u baahan xaruntaas oo celcelis ay maalin walbo soo wacdo ku dhowaad 5,000 oo muwaadin oo loo adeegayo una baahan adeegaas waxaa la howlgeliyay xaruntii ambalaasyada oo si aan kala go' lahayn u shaqeysa si ay ummadda Soomaaliyeed ugu adeegto waxaa diyaar ah dadkii iyo qaabkii loo aasi lahaa Allah u naxariistee dadka inaga geeriyooda si loo caawiyo qoysaska dhibku soo gaaray loona yareeyo faafidda cudurka dhammaan hay'adaha caalamka oo aan la xiriirnay waxaan ku wargelinay in howl kasta dhinac la dhigo awoodana la isugu wada geeyo la tacaalidda masiibada waana ku bogaadinaynaa inay dhammaantood nala qaateen walaalayaal xaqiiqatan dhabta cudurkan dhibaatooyinka ka dhalanaya nagama diimoona nolosha iyo maciishada ilaalinteeda waa mudnaanta koowaad taas iyadoo aan ka duulayno waxaan kulamo maalinle ah la leenahay ganacsatada Soomaaliyeed waxaana isla meel dhignay sidii looga taxadari lahaa wax kasta oo sicir barar ummadda u keeni kara iyagoo ganacsatadu ka faa'iideysanaya canshuur dhaafka ay dawladdu u samaysay waxaan mar kale ganacsatada Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inaan qiimaha cuntada kor loo qaadin waxa kale oo shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa inaan saarnay guddi si gaar ah u ilaaliya inaysan kor u kicin maciishada qutul daruuriga ah guddigaas oo aqoonteeda leh waxay si maalinle ah ula socdaan sicirka suuqyada walaalayaal ilaa iyo hadda xigmadda laga bartay sida wadamada dunidu waxyeelada cudurkani ugu kala badan yihiin tirada cudurku asiibo iyo boqolleyda u dhimatay waxayna tusaysaa in heerka daryeelka ka sokow oo ciriiriga iyo isla falgelidda dadweynuhu kaalinta ugu weyn ku leeyahay walaalayaal waa sababta aan mar labaad idinku gacan haatinayo idin xasuusinayo in kala fogaanshuhu inoo dan yahay in nadaafadda gacmuhu inoo dan tahay in faraha wajiga laga ilaaliyo inoo dan tahay in guri fadhigu inoo dan yahay in fariimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka inaan ku dhaqanno inoo dan tahay fayoobi inaan dooranno oo cudurka aan ka foojignaano kana fogaano inay noo dan tahay foojignaan iyo cudurka inaan la faafin inay noo dan tahay isku tiirsanaan ayaan walaalayaal uga tallaabi karnaa dhibta baaxadda leh ee cudurkani uu keeni karo fududaysiga waa inaan walaalayaal ka dheeraanaa ismaqal bay danta ku jirtaa waxaan dhammaan idinkugu baaqayaa in la qaato tilmaamaha ka imaanayo wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed walaalayaal
maanta waxaa muhiim ah in kan aad jeceshahay aad u turto si uu kanuu jecel yahay isna ugu turo. waxaan idiin dardaarmayaa inaad kulligiin isu wada turtaan. waxaa timid walaalayaal bishii barakaysnayd, bishii khayrka badnayd, bishii ramadaan. farxad iyo raynrayn ayaan ku qaabilaynaa. qof kasta gaarkiisa gurigiisa ha ugu cibaadaysto. bishaan barakaysan waxaan ilaahay ka baryaynaa fadliga cibaadada inuu dadkeenna ilaahay caafimaad siiyo, cudurkana ka badbaadiyo. waa inaan baryada ilaahay badinaa bishan barakaysan. waxaan kale oo aan ku dardaarmayaa in fadliga bishan barakaysan darteed loo gurmado dadka tabaalaysan, laysuna naxariisto. allah ayaan ka baryaynaa inuu noo dhib yareeyo. waxaan leeyahay yaa salaam sallimnaa min alwabaa.